maxaa laga helay gudaha qasriga madaxtooyada wadanka Suuriya ee uu ku noolaa Bashar al-Assad. halkan waxaad ka arkaysaan god dhulka hoostiisa ah oo madaxtooyada hoosteeda ku yaala. waa tuunal qarsoon oo loo dhisay si cajiib ah looguna talagalay ama uu isugu diyaariyay inuu uga dhuunto mataqaanaa cid kasta oo ku soo duusha maadaama uu ahaa nin dictator ah oo wadanka Suuriya muddo aad u badan haystay. qof kasta oo dictator sidaan ayaa lagu yaqaanaa inuu mataqaanaa u dhuunto. tuunalkan ama godkan aad arkaysid waxa uu ku geyn doonaa meelo cajiib ah oo aad la yaabaysid. waxaana laga helay gudaha madaxtooyada qasriga wadanka Suuriya oo ah halka uu deganaa Bashar al-Assad oo muddada aadka u dheer ee wadankaas oo madaxweynaha ka ahaa oo ku jiri jiray. halkan qof ayaa waxa uu la dhaxgalayaa kaamirad oo uu soo duubaya. waad arkaysaan haddii lagu sii socdo mataqaanaa ishaaraad ama fariimo ayaa darbiyada ku dhegan si uusan qofku ugu jahweerin ama uusan ugu lumin. ayaga bas ayaa yaqaana. waxaa la soo galay meel dhan oo apartment ah oo aad u weyn oo qolal maqaayado meelo la seexdo qolal shir xafiisyo caadi ah iyo mataqaanaa kuwo loogu talagalay qofku inuu ku sii dhuunto. kaameramanka ama qofka duubaya muuqaalkaani kolba meel ayuu la aadayaa. markaani waxa uu dhex joogaa mid ka mid ah mataqaanaa wadooyinka isku xira guryaha. waxa uu soo galay markaani qol wax walba ay ku diyaarsan yihiin oo dhulka hoostiisa ah. dabcan meeshaani waa dhulka hoostiisa waxa ka sii dul dhisan qasriga madaxtooyada ama mataqaanaa meeshii looga arriminayay wadanka ee Bashar al-Assad saldhigga ama fadhiga u ahayd. halkaanina waa dhulka hoostiisa. cajiib. kaameramanku waxa uu duubayaa meel kasta oo mataqaanaa qalab ku diyaarsan yahay. halkan dabcan waa matooradii iyo waxyaabihii ay haddii mataqaanaa la go'doomiyo ay isticmaali lahaayeen. waxa uu leeyahay qolal istoora ah kaydad ay ugu jiraan si ay mataqaanaa waqti intay rabaan ugu noolaadaan. waxay ugu tala galeen inay ku jiraan ilaa intay caawimaad ka helayaan haddii uu dhaco dagaal kor looga qabsadaa. laakiin hadda way u suurtageli weysay inuu ku dhuunto halkaani. waxauna qolalkan u diyaarsaday iyo dhulkan hoostiisa si mataqaanaa uga hortago ama aysan ugu dhicin duqeymaha suurtagalka ay tahay in mar uu la eegan doono maadaama wadanka inuu madaxweyne ka sii ahaado aysan jirin cid raalli ka ah. weli waxaan ku dul wareegaynaa qolalkii midba mid ayuu ku diibayaa. waxa yaala fadhiyo meeshaan oo kale waxaad arkaysaan tikniik mataqaanaa in naqshad inay degan tahay. naqshad maqaabka gurigu looga bixi lahaaya mise sida loo soo gelayo ama maab ahaan ama architecture ahaan siduu u dhisan yahay inay tahay macquul. meel kastoo aad aado waxaad ku arkaysaa wax kaa yaabinaya. waa magaalo dhan ama xaafad dhan oo dhammaystiran oo dhulka hoostiisa ku taala. waxaa lagu diyaariyey wax walba oo loo baahan lahaa haddii ay noqon lahayd koronto, cunto, biyo mataqaanaa meelo la seexdo, meelo lagu shiro, kaydad caadi ah. luuq kasta oo aad ka rugmato oo mataqaanaa aad gashaba waxaad ku arkaysaa wax la yaab leh. xitaa hadda waxaan soo dhaafnay meel qashin uu ku aruursan yahay oo waxaa loogu talagalay yacni ama fuulinimada waxay ku tusinaysaa fuulinimada meeshaasi ka jirta oo ah in qashinkaas hataa fursad banaanka loogu bixiyo la waayey. korontaa ku jirta sida fiilooyinka aad arkaysaan. waxaa muuqaalkan soo duubay qof gudaha u galay markii magaalada lala wareegay. la yaab. wadkaani waa tuunal dheer. waxuu ninkani ka soo galay banaanka waxaana laga yaabaa inuu mataqaanaa banaanka uga baxo oo dhinaca kale uga baxo. isma lahan meesha laga soo gelayo iyo meesha laga baxayo. waa laga hor imaanayaa oo dad baa ku wareegsanaya maadaama ay dadka dhan ka yaabinayso. halkan ishaaraada ku yaalo kollejaas dartaani kor ayay aadaa. waxayna macquul ah in ay tahay mid looga baxayo meesha ama dhismahan hoose ee dhulka hoostiisa ku yaala. halkaas irid inaad ka aragteen ayaan rajeynayaa. halkan dadku ay ka baxayaan oo ninkaas uu sii korayo kolley waa irid. la yaab. wadanka Suuriya run ahaantii waxaa ka dhacay wax cajiib ah oo mataqaanaa lama filaan ku noqotay adduunkii oo dhan. maxaa yeelay marnaba lanaba filin in waqtigan sida u degdega badan lagu qabsan doono guud ahaan wadanka.